saldhiggii magaalada kuwait uu ku lahaa maraykanka uu gubanayaa. sacuudi arabiya saldhiggii uu ku lahaa dowladda maraykanka weerar ayaa ku socda. saldhigga faransiisku inuu gubtay ayay dowladda isku tagga imaaraadka carabtu ay qirtay. dowladda maraykanku sidoo kalena markabkoodii war kama dambaysa ayay kasoo saareen. war ayay kasoo saareen yaana dhigi kama dambays, laakiinse war ayay kasoo saareen markabkoodii ibrahim lincoln iyo meesha uu ku sugan yahay. sidoo kalena waxaa socdaa qaraxyo waaweyn oo hadeerto kusoo wajahan ka dhacaya dhe magaalada tehraan iyo kuwo kale kusoo wajahan talaabib iyo israa'iil, magaalooyin kala duwan oo ay kamid tahay qudus galbeed. magaaladii kuwait ee xarunta kuwait saldhigga uu dowladda maraykanku ay ku lahayd ayaa qaraxyo aad u waaweyn oo ka dhacayaan, iyadoo lagu tilmaamay in qaraxyada halkaasi ka dhacaya ay yihiin marba marka ka dambaysa kuwo markaasi sababay ayaa layidhi dhibaatooyin ballaaran oo ah khasaare naf iyo maalba leh, inkasta oo ay dowladda maraykanku ilaa hadeerta aysan war ka soo saarin dhimashada iyo dhaawaca ciidankooda ka gaari kara halkaasi. laakiin waxaa la arkaya iyadoo qarax aad u ba-an uu ka dhacay saldhiggii ciidanka cirka ee dowladda maraykanku ay ku lahayd kuwait. sidoo kalena dowladda kuwait ayaa sheegtay inay xaqiiq tahay in uu burbur ku socdo, waxaana la sheegay in diyaaradaha shahiid ee hadeerta ay kusoo daateen qaybo badan oo kamid a saldhiggaasi iyo deegaanadii, inkasta oo dowladda maraykanku ay sheegayso inay sameeyeen tallaabooyin hordhaca. dhanka kalena waxaa la sheegay in magaalada baqdaad ay ka socoto qabanqaabada la doonaya dadka maraykanka iyo ciidamada maraykankaasi ku sugan ee gobolka laysku dayo in laga bambaaniyo. dowladda maraykanka ayaana sheegtay in danaha dalka maraykanka ee ciraaq ay halis ku jiraan. war qoraal oo safaaradda maraykanka baqdaad soo saartay ayaana loo sheegay in ay dadku isku diyaariyaan halis weyn oo kasoo jijiilay halkaasi, iyadoo dhanka kalena lasoo daabacay markaasi xaalad loogu yeedhay markaasi mid aad iyo aad u adag oo looga digayo dhammaanba dadka maraykanka iyo muwaadiniinta oo dhan in ay iska jiraan, islamarkaana ay ka fogaadaan goobaha ay tegayaan iyo meelaha ay ku sugan yihiin. warar kale ayaa xaqiijinaya in ay dowladda maraykanku ay hadeerto ay la kulmayso weeraro trabeela oo kala duwan dhammaan salgyada ay gobolka bariga dhexe ku leedahay.